الله يديم بركيه soo dhawaada waxaan soo dhaweynaa insha Allah ta'ala sheekhan qaaliga ah anigu reer Nakuru ah insha Allah ta'ala sheekhan soo dhaweynaa waxa weeyaan meeshan dadkaygan la qabsaday waa degay waxba ima dhinna marka sheekha martino ah marka sheekhan dhageysayna biidinaahi tabaaraka wa ta'ala sheekha reer Nakuru hadaan nahay ku soo dhawaana Nakuru السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلهي baan ku xamdinaynaa mar hore iyo mar dambaba. qur-aanka suuradda ugu weyn waa suuratu الfaatixa. bacda albasmala iyaduna waxay ku bilaabantaa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin. aadam calayhi salaam markii lagu afuufay ruuxda, dhawaqii u horreeya nebi aadan afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa u hindhisooday. deedna markaasuu yidhi alxamdu lilaah. ahlaljannuhu markay jannada ay galaan waxay odhan doonaan waqaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أهل النار والعياذ بالله أيكنا بنك قيامة مركز لغا dhaqaajiyo xagga naarta loo dhaqaajiyo ayaka laftigoogu waxay ku mahadnaqi doonaan ilaahay cadligiisa. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. labada qolada jannada loo dhaqaajiyey iyo kuwa naarta xaggeeda loo qaaday intuba wax dhihi doonaan baa ilaahay yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. dadka jannada xaggooda loo qaaday fadliga ilaahay bay ayay ku xamdinayaan, ilaaha u naxariistee jannadii ku deeqay. amaa qofka ahla naarka naar buuba u socdaaye muxuu ku xamdinayaa isagu? waxaa la yidhi isaguna wuxuu ku xamdin doonaa ilaahay cadligiisa. marka inakuna ilaahay mar walba inaan u mahadnaqno waa cibaado. afdalu dikri laa ilaaha ila allah wa afdalu ducaa alxamdu lilah. xus ilaahay caza wajalla la xuso waxa ugu fadli badan kelmaddaas inaad ilaahay mar walba ku xustaa laa ilaaha ila allah. mahadnaq duca ilaahay la baryo oo ilaahay la baryo wax la weydiisana waxa ugu fadli badan buu nebigu yidhi inaad tiraahdaa alxamdu lilaah. haddaad mar walba noqotaa addoon mahadnaqaya, nicmaduna way kuu ziyaadiya ogow. bilxamdi taduumu الnicam
وبالشكر تزداد النعم haddaan ilaahay u mahadnaqna mar walba oon ilaahay mar walba carabkeena ku hayno nicmadaan haysana way noo daa'imaysaa oo hadigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah mar walba nebigu ilaahay buu u mahadnaqayay hadduu cunno cuno alxamdu lilaahi aladii acamanii warazaqanii min gayri xawli minii walaa quwa buu odhan jiray hadduu jiif ka soo kaco alxamdu lilaahi aladii radda calaya ruuxii wacaafaanii fii jasadii waadina lii bidikrihi hadduu maaragtaanay soo arka hadduu baytalmeyg ama xaaje uu soo guto gufraanaka buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam wa fii xadiiin aakhar alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wacaafaanii hadduu qof dhibaataysan oo masiiba ay ku dhacday oo ibtiloobay hadduu nebigu arkana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima ibtalaa bihi calaa kaiira min cibaadihi wafadalanii ilaa aakhir alxadiid ilaaha maaragtaane ii nicmeeyey ee maaragtaane balaayadaas iyo masiibada dadka badan ku dhacday aniga iga ilaaliyey ee khalqi fara badan uu sameeyeyna iga fadilay ayaa mahadla buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam yadkuru llah ilaahay buu nebigu xusi jiray mar walba lanna dikriga ilaahay waa saddex qaybood dikru اlqalbi iyo dikru اljawaarix iyo dikru اllisaan dikru اllisaan waa kan carabka weeyaan markaad tidhahda subxaana allah carabkaad ilaahay caza wajalla ka xustay markaad tidhahda alxamdu lilaah carabkaad ilaahay uga mahadnaqday markaad tidhahda laa ilaaha ila allah carabkaagii baad ilaahay ku waxiday markaad tidhahda allahu akbar carabkaagii baad ilaahay ku weynaysay waa dikru lisaan laa xawla walaa quwata ila biاllahi baa ka mid ah kanzun min kunuuzi اljanna waa kanzi jannada dhex yaalla buu nebigu uhi kelmaddaas ibraahim calayhi salaam ibraahim alkhaliil ayuu nebigeennu ku soo maray samada toddobaad korkeeda waxuu uhi ummadaada salaanna iga gaadhsii waxaanad u sheegtaa arlada jannadu dhulkeedu waa dhul bannaan oo in la beertana maaragtaane ku fiican dhirta jannada ku taalana waxaa lagu beeranayaa subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar haddaad iminka halkaas ka fadhiisato oo tidhaahdo subxaana allah karsun fi ljanna geed baa jannada lagaaga beerayaa laa ilaaha ila allah markaad tidhaahdid karsun fi ljanna wallaahu akbar markaad tidhaahdid karsun fi ljanna geed jannada ku yaalla buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faraska fardaha ugu orod dheereeya ninka fuushanee wata hadhkiisa dhammayni maaya buu nebigu yihi hadduu 100 sano uu hoos ordana waa geed jannada ku yaalla oo lagu diyaariyey adiga ayuha almuumin oo tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiir aad ku beeratay wadillin mamduudin waa ka ilaahay ku sheegay fii suurati alwaaqica waa hadh la fidiyey weeyaan baa ilaahay yidhi jannada hadhkeeda iyo geedaheegu faras la fuula faraska ugu orod dheereeya 100 sano ayuu hoos ordayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam mana dhammayn karaysaan buu nebigu yihi oo ka bixi kari maysaan waxaana lagu beeranayaa waa tasbiixdaas man salla lilaahi 12 rakcatan taطawucan hayra alfariida bana allaahu lahu beytan fi اljanna aw buniya lahu beytun fi اljanna 12 rakcadood oo sunno ah qofka maalinkii tukada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam aqal ayaa maaragtaana jannada looga dhisayaa aqalka jannada lagaaga dhisay intuu la eg yahay ilaahay unbaa xajmigiisa iyo qiyaastiisa garan kara 12 rakcadood buu nebigu sheegay 12 rakcadood waa 2 rakcadood ee fajarka ka horaysa iyo 4 duhurka ka horaysa iyo 2 duhurka ka dambaysa iyo 2 maqribka ka dambaysa iyo 2 cishaa'iga ka dambaysa 12 ka rakcadood qofka maalin walba laazima waa rawaatib ayaa la yidhaahdaa ilaahay caza wajalla aqal buu jannada uga dhisaya aqalka adduunyada aqalada adduunyada bini aadam baa dhisa injineer iyo cumaalin baa ku dhisaysa laakiin aqalka jannada muuminka ilaahay ugu diyaariyey ilaahay baa kuu diyaariyo wuxuu ku dhisay kun fayakuun
cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa yidhi qasri jannada ku yaalla ayaa jira qasr 500 oo albaab buu leeyahay oo laga galo albaabka qofka mu'minku uu ku hagaagaba waxa u joogta buu 5,000 oo xuur alcayna waa 2,500,000 oo xawraaya ayaa hal qasri oo jannada ku yaalla ku xeraysan markaasuu cumar binu khadaab ayaa la weydiiye oo lagu yidhi qasrigaasi cumar alfaaruuqow ma nebiye unba heli doona markaasuu yidhi cumar haa nebiyaduna way helayaan laakiin sidiiqiintuna way helayaan buu yidhi qasrigaasi waxaa loogu talagalay alambiya calayhim assalaam markaasuu nebiga qabrigiisii gacanta ku fiiqo wuxuu yidhi hanii'an laka ayuha nebiy nebi maxamedow qasrigaa waan kuu haneeyey haddana abuubakar qabrigiisii buu farta ku fiiqo wuxuu yidhi hanii'an laka ayuha sidiiq qusuurta intaa leeg sidiiqiintuna way geli doonaan hanii'an laka ayuha shahiid wa annaa laka shahaadata yaa cumar markaasuu yidhi weliba qasrigaa kuwa shuhadada ee gacanta cadowga ku dhintay ilaahay dartii loo dilayna way heli doonaan laakiin cumarow adigu shahaada halkeed ka heli doontaa buu yidhi maalintaa intii ka dambaysa cumar binu khadaab wuxuu bilaabay inuu ku ducaystu yidhaahdo allaahumma arsuqnii shahaadatan fii sabiilika wa wafaatan fii baladi xabiibika ilaahu aniga shahaado igu arsaaq shahaado inaan diintaada u dhinto oo gacan cadow aan ku dhinto ilaahu ii dhib yare igu arsaaqo igu deeq weliba beledka xabiibkaaga anigoo joogo ilaahu isii buu yidhi markaasaa lagu yidhi cumar ma madiinata almunawara oo daarulkhilaafa ah oo cadligii islaamku meel walba uu gaadhay miyaad shahaado adigu aad ku sugaysaa markaasuu ilaahay waa qaadir inuu isiiye buu yidhi abu lu'lu'ata almajuusiy cabdumuqiira binu shucba kii midiyaha iyo biraha u samayn jiray ayaa cumar alfaaruuq radia allaahu canhu isagoo salaadiisu fajar ku jira ayuu midi geliyey baa layidhi intuu gadaashiisa soo taagay markuu cumar dhulka ku dhacay ayuu yidhi ayaa i dilay ayaa midida i geliyey ii sheega markaasaa lagu yidhi abu lu'lu'ata almajuusiy walid maaragtaan muqiira binu shucba addoonkiisii majuusiga ahaayee dabcaabudka ahaayee biraha iyo qolxadada iyo seefaha iyo gaashannada u samayn jiray kaabaad maaragtaane ku dilo isagiina waan haynaa markaasuu cumar yidhi alxamdu lilah marba haddaanan gacan muslim aanan ku dhiman oo nin majuusi oo mushriga gacantiisa maanta aan ku dhintay waataan ilaahay weydiistay buu ku yidhi waataan ilaahay weydiistay daadna cumar markaa u dheelmaday markaas yani u miyir daboolmay markaasaa si walba markaa loo taabtaabtana jidhkiisii waa dhaqdhaqaaqaya laakiin hadal ma soo celinayo waa amiirkii muuminiinta dardaaran baa laga rabaa uu dhiig baxay dhakhtarrada casrigan maanta innagu aan haysanana isagu ma haysan innaka markiiba qofku markuu shil uu galo ambalaas markiiba la booday oo dhakhtar baa la geenayaa bal ambalaaska dhexdiisa laga yaabaa haddii uu dhiig ka socdo markaaba dhiig joojin in loo sameeyo ambalaas dhulka socdana uu jiraa ku hawada socdana uu jiraa diyaaradaha waxaa jira iyakuna hawada maro oo lagu leeyahay waa ambulance waa la kireystaa cumar alfaaruuq radia allaahu canhu dhiu dhig baxay isagu nicmadan maanta innagu aan haysanay aalaadkan ilaahay noogu nicmeeyo dhinac walba ilaahay uu inaga dhigay ma haysan iyaku zamankooga waa zamankii awrta iyo baqasha iyo dameeraha iyo lugta la adeegsanayey waa zamanka qofku hadduu helo hal wajbad buu cuntada cuni jiray waa zamanka qofku maaragtaanay hadduu aqalkiisa uu noqdo aqal cariisha oo maaragtaanay isaga uu qariya oo ilaahay ugu mahadinaya weeyaan zamankaasi markaasaa si walba loola hadlay yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin nin baa yimid oo yidhi anigaa cumar kicinaya ii dhaafa buu yidhi asalaata yaa amiira almu'miniin asalaa yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin salaaddii baa taagan yaa amiira almu'miniin salaaddii baa gaadhay hal mar keliya cumar indhaha intuu sidaa u kala qaaday buu ku yidhi buu yidhi inahaa xaqun walaa xada fi lislaami man taraka asalaa salaadda waa xaq ilaahay nagu leeyahay qofka salaada ka tegayna diinta islaamka nasiibkuma le buuhi qofkaasi markaasuu anu ma tukaday markaasaa lagu yidhi rakacad baa tukatay laakiin rakacad baa ku hadhan baa lagu yidhi rakacad baa ku hadhay markaasuu xidhay haddana uu dhacay fadhiga uu jiifa uu xidhay haddana uu miyir daboolmay uu soo kacay ma tukaday may ma tukan haddana uu ku celiyey ma tukaday haa waa tukatay baa lagu yidhi markaa buui alxamdu lilaahi aladii acaananii calayha
ilaaha waxaan ku xamdinayaa salaada inaan dhammaystiray igu caawiyey baa mahadna buu yidhi amarka ilaahay bal halka uu ka taagnaa iyo ka eega shahaadadu waa taas sidqu likhlaas cumar alfaaruq ilaahay madiinat almunawar uu ilaahay shahaado ku siiyey marka qusuur baa ilaahay jannada muuminiinta ugu diyaariyey qusuur ragga muuminiinta iyo gabdhaha muuminaadka haweeney duqa nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaa bay tidhi yaa rasuul allah islaan yaa rasuul allah bal jannada iiga sheekay bay ku tidhi jannadan mushtaqadu ahee shawqul janna markaa iyadana ku jira markaa buu nabigu ku yidhi islaan duqa jannada ma galayso buu yidhi way naxday aqalkeedii bay ku noqotay oydi markaaba nabiga loo sheegay oo lagu yidhi yaa rasuul allah islaantii heblaayo duqda ahayd ee jannada ku weydiisay ee aad ku tidhi islaan duqa jannada ma geli doonto way ooyeysaayo aqalkeedii bay fadhidaa nebi allow markaabuu nebigu ku yidhi u sheega oo waxaad ku tidhaahdaan iyadoo da'daasa jannada geli maysee iyadoo inan yaroo 30 jira laga dhigay bay jannada geli doontaa ku dhahda buu rasuulku yidhi innaa ansha'naahunna insha'a fajacalnaahunna abkaara curban atraaban liasxaabi alyamiin shaab buu qofku noqonaya markuu jannada galaayo adoo gaboobay jannada ma gelaysid adigoo murugaysana jannada ma gelaysid wanasacnaa maa fii suduurihim min hil ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliina baa ilaahay yidhi albaabka jannada markay muuminiintu ay joogsadaan waxli wixii amraadda qalbiga ku tacalluqda oo dhan xasadka iyo buqdiga iyo maaragtaane macsiyo jacaylka iyo khafladda iyo maaragtaane cadaawadda iyo cadhabadnida sifaadka xunxun ee damiimada ta muuqata iyo ta daakhiliga labadaba halka albaabka jannada qofka muuminka lagaga reebaya jannada qofku wuxuu galayaa isagoo caafimaad qaba ayuu galayaa isagoo 30 jir da'diisa lagu soo celiyey buu galayaa isagoo maaragtaane haniya buu galayaa isagoo loo bishaareeyey nolol daa'ima buu jannada galayaa idaa dakhala ahluljannati aljanna yunaadii munaadin bianna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada waina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada waina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada waina lakum an tashubuu falaa tahramuu abada ya ahla aljannati khuluudun bilaa mowt waya ahla annaari khuluudun bilaa mowt walciyaadu billaah muuminiintu markay jannada ay galaan adduunka dusheedii acmaal bay la yimaadeen acmaal salaadiisii buu arkayaa waxay u qabatay adkaartuu sameeyey buu arkayaa waxa ilaahay ugu diyaariyey sunnuhuu tukanayay wuxuu ku helay buu arkayaa sadaqaduu bixiyey wuxuu ku helay buu arkayaa miskiin hadduu wax siiyey wuxuu ku helay buu arkayaa jannada ayaa ilaahay tusinaya naciimteedii markaasuu qofku xanuunsanaya afar shay buu qofku xasuusan geeridii buu xasuusan gabowgii buu xasuusan bugtaantii buu xasuusan baahidii buu xasuusan murugtii buu xasuusan xagga ilaahay baa dhawaaq ka iman doonaa oo la odhan doonaa ahlaljannow maanta laga bilaabaa jannada dhexdeeda waxaad ku leedihiin nolol dhimasho dambe aanan ka dambayn insha allah dhahada qolo insha allah dhahada allah inaga dhiga kuwaas adduunka waa la dhintaa soo maa faqiirku uu dhiman hanigu uu dhiman madaxdu way dhimanayaan maalqabeenku uu dhiman dhallinyaradu way dhimanayaan dhimasho meel dhimasho taalla see ugu raaxaysanba inaad dhimataa miiska kuu saaran be nolol waxaad leedihiin dhimasho dambe aan lahayn uma caafimaad qab xanuun dambe ma jiraayo khalaas ma bukoonaysaan adduunka qofku inta uu yar yahay waxaa laga yaabaa inuu caafimaad qabo laakiin 45 50 markuu gaadho haddee toole kolba baloon baa soo dabcayo qofka araggii baa soo gaaban maqalkii baa soo gaaban quwaddii baa soo yaraan kolba dhinac baa laga qaban markaasuu qofku is-eegi isjeegaraynaya u leey dhiig karbal iga baadha sokor iga baadha milix iga baadha kolestarool iga baadha maxay kale iga baadha wuu isbaadhayaa marka qofka 50 hadduu gaadho haddee toole intuu dhallinyarada yahay qofku ma xasuusto waxaasoo dhan laakiin 50 hadduu gaadho wamaa fowqa 50 hadduu gaadho haddee toole waxaa imanaysa xilligii ay yidhahdaan waa inaad qofku xilligaa is-ilaaliyaa jannada dhexdeeda xanuun dambood ka baqaysa haba yaraatay maba jiraba ma dhimanayaan mana bukoonayaan mana baahanayaan tancamuu falaa tab'asu abada nicmadda adduunka qofka laga yaabaa inay ka zuusho
kii maanta faqiir ahaabaa laga yaabaa berri inuu noqdo maalqabeen haniya kii maanta haniga ahaa waxaa suuragala berri inuu noqdo faqiir kii madaxa ahaayee ummaddu daba yaacaysa laga yaabaa berri jeelka in loo taxaabo la xidho kii jeelka ku jira waxaa suuragala in laga dhigo maaragtaan boqor laga dhigo tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas nolosha adduunyadu waa sidaa weeyaan waa sidaas waa nolol gebigeegu wada guurguuraysa way guurguurtaa cali bn abi aalib baa lagu yidhi sif lana adunya yaa imaam cali adduunka bal noo sifee baa lagu yidhi raggaasi adduunyada si fiican ba u yaqaaneen iyagu ma asifuhaa buu ku yidhi awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa ciqaab buu yidhi maxaan adduunyada ku sifeeyaa buu yidhi awalkeedu waa tacab qof kastoo adduunka jooga maanta wuu daallan yahay dhallinyaradu way daallan yihiin oo gabdhuhu way daallan yihiin oo waalidadu way daallan yihiin oo hooyo way daallan tahay oo ilmaha yar baa daallan oo kii taajirkaa daallan oo kii faqiirkaa daallan oo madaxdii baa daallan oo dadkii caddaabaa daallan qof nastee adduunka raaxays way ii gaadhay odhanaya muu jiraa waar ma jiraa ma jiro awaluhaa canaa awalkeedu waa tacab buuri waa tacab qofku 20 jirka ilaa 40 jirka baa la yidhi waa 20 sano qof kusoo dameerka u shaqaysto tacabun wa aakhiruhaa fanaa aakhirkeeduna waa dhammaad ama adaa dhiman ama adoo haystee kaa tegaya kaa socon xalaaluhaa xisaab xalaalteeda kugu soo gashana waa xisaab baa daba taalle ogow xalaal hadday kugu timaaddo maalinka qiyaamaha waa la weydiin qofkan uma latus'alunna yowmaidin can الnaciim min maalihi fima anfaqahu waayna iktasabahu baa nebigu yidhi xadiis macnihiisu aha xoolihii halkay ka soo galeenna waa la weydiinaya qofka mu'minkaa halku ku bixiyana qofka waa la weydiin doonaa awaluhaa wuxuu idhi xalaaluhaa xisaab xalaal bay kugu soo gashay waa la xisaaba ku daba taalle ogow xaaraanteeduna waa cuquuba daba socoto waa lagu ciqaabi man iftaqara fiiha xasan buu yidhi ninka adduunka dusheeda faqri iyo baahi la soo daristo wuu murugoodaa faqiirku wuu murugoonayaa waman istughniya fiiha iftutina buu yidhi ninka adduunka dusheeda hanti iyo dhaqaale ilaahay ku siiyeyna isagana fidnadunbuu ku jiraayo ugu ma seexdo cidhiidh unbuu ku jira iyo walwal iyo walbahaar iyo stress oo waddanka isrogi lacagtu may kaa dhammaan shaqadaadu may hoos bay u dhici dollarkii baa kacay dollarkii baa dhacay subax walba baanku tegiyuu eegi lacag maxay taallaba odhan murugunbuu ku jiraa kaasina murug iyo naxdin nin taajiroo maalqabeena habeenkii ma seexda ninkaasi wuxuu ku seexdaa kaniin laakiin waashmaankiisa albaabka u ilaaliya waashmaan baad tirahdaan soo maha security haariska bawaabka markuu iridda xidho ay baabuurtu soo wada gasho meeshaa in albaabkaaba aqal looga sameeyey u iska seexdaa weliba uu khuriyaa si fiican buu u seexdaa quruf qarraf ninka maalqabeenka u wareegaa markaa habeenkii ma seexanayo dushaasaruu ku leeyahy aqal oo xataa ciyaalkiisa midba qol buu u sameeyey isaguna xagga sar u aqal fiican ka dhistay wuxuu leeyahay shanqar ma maqlo laakiin ma seexda ninkaasi habeenkii imaa xabuub buu ku seexan imaa irbad buu ku seexan siduu habeenkii markaa u wareegayo ila waa nin maalqabeenoo xisaab buu ku jiraa moogta xoolihiisii buu ka fikirayaa kanuu haddana ka fikirayaa kanuu u shuuraynaya kanuu eryaya kanuu soo qoraya halkaabuu xoole ka yaalay telefoon buu ku hadlaya telefoon baa u soo dhacaya waxbuu ka jawaabaya su'aalaa la weydiinaya ma seexdo maskaxdii baa dhalaashay laakiin wuxuu arkaa waashmaankiisii oo iska hurdo iska khurinaya uu yaabay haddana habeen labaad buu dul yimid isagoo khurinaya ajiib dadka fuqarada waa ajiib moogta ilaahay uu qaybiyey nicmadda qoladan maal baa la siiyey laakiin raaxa ma haystaan qola waxaad arkaysaa fuqara la yidhaahdo oo iminka xanuunka waaga dhoweetee koronaha ka soo qaad example waa mithaal gaban baan nii sheegi dadka ugu cabsida badnaayay haayeen dali sheega dadka gaaska yar haysta soomaa gaaska waa kuwa lacagta yar haysta kuwaasa cabsi badan masaajidda kuwa ay ku tukadaan ilaa imika afkay wada xidhan yihiin fuqarada masaakiinta ee muruqmaalka ee maalintii iska xamaaliinta la yidhaahdo
wax korona ka baqay ma aragteen iyaga armaad aragteen ma jirin wadankan bariga aad u dhaxmaro xamar baan joognay maalmaha adduunku diyaaradu kala xidhmayeen markaas diyaaradaha ku timaadeen way istaageen garoonkii xamarna uu xidhan yahay Djibouti way xidhan tahay halka way xidhan tahay dhulkaan iska marnay dhulka markaan marayna dadka hayjadaha ku nool ee xoolo dhaqatada ama fuqarada masaakiinta waxa magaalada wareer iyo qayl iyo buuq dhul baa la xidhay maxay baa la xidhay ka taagan warka ma bahayaanba غنيga ninka maal qabeenka iyo ninka masab maanta madax ahaaye meel fadhiyay labada ugu cabsi badan ee corona ka baqayso waa labadaas fuqaradu waxba kama baqaan dad faqiir ay ma corona waxaan cunaan laanahay buule aan cunaa laanahay buule corona hadii alla arkida waa cunaan lahayn buule mid oo ka baqay ilaahay uu qaybiyay moogta nicmada kuwan maal baa la siiyay laakiin cabsi baa lagu riday qalbiga mar walba way baqaan kan waa faqiir ma baqayaba wuxuu leeyahay maxaa ka baqi imika nin lacag yar wato oo meel suuqa dhex maraya oo cabsoon wuxuu leeyahay bal tuugtu ku dhac laakiin nin xalay aan casheeno maanta qadayn oo faqiira hadduu tuug dhex maraya muu cabsoonaya ma cabsoon muxuu leeyahay iyo kaaba baadan buu leeyahay aniga waxa cuna balaba ilaahay sidaas uu markaa bini aadamku ugu qaybiyay nicmadiisa lidaalika ninka maal qabeenka habeenkii ma seexdo laakiin waashmankiisu iska seexdaa uu fiirsaday uu fikray ninkii wuxuu yiri malaha ninkan wuxuu la seexanaya waa faqriga anna waxaan la seexanayna waa qinada Soomaha bal waan eegi isagu markaa ku jarrabaya waxa la bishaarka wuxuu siin jiray mesela $100 bishii $300 ma uga dhigay bishii uu yeeray maalintii lacagta la siinay uu yimiday qaado buu koro warqad buu ugu xidhay warqad buuqshadii buu riday markuu kala furay waa $300 wuxuu lacagta waa ay qaldanteen may kuuma qaldamina waan ku gartay iska qaado buu kaydi halka buu iska gashaday miskiinka uu farxay markaa habeenkii buu markaa ninka maal qabeenku wuxuu eegayaa bal ninka inuu seexday ee galcaaw eeg oo dulmaray awal 2 saac buu seexanay laakiin maanta 3 saac wali waa soo jeedaa ninkii uu fadhiyaa uu eega markaas uu soo jeedaa haddana 4 saac buu kor maray wuxuu arkaa ninkii oo xilligaas sii goglanayo sii seexanaya uu seexan waayo soo baarisaa haddana wuxuu dul yimid meelaha 5 saaco oo arkaa ninkii oo go'ah wadayo laakiin hoosta ka dhaqdhaqaaqaya markaa haddana 6 saac uu soo maro wuxuu arkaa ninkii oo badhida u fadhiya markaasuu maxaa ku fadhiisiyay wax kale ima heline lacagtii aad ii biirisay ayaan ilaa imika ka yar fikirayaa islaanta maxaad ugu dartaa kan kale maxaad siisaa kan waa miskiina maxaad siisaa ciyaalka maxaad u iibisaa maxaad la hadhaa maxaad ku samaysaa waayahay wada iska seexuulahay habeenkii oo dhan ninkii ma seexan waagii indhaha casaaday ninkii waa washman ilaa habeenkii inuu jiiftay haydo maalinkiina shaqeeye waagii markuu baryay ninkii maal qabeenkii baa u yimid ninkii indhuhu casas yihiin oo albaabka furaya oo xidhaya markaasuu yidhi sheef labadaadii $100 ee dheeraadka ahayd iga qaada buu kiri waatan maxaa dhacay xalay kama seexan buu yidhi cadaab baad ku jirtaa buu yidhi cadaab aniga waxaan haystaa buu yidhi intaa yaraada siiso $100 baa masaariiftaydoo dhan waa isku fadhidaa buu yidhi xalay labadaa $100 waan ka jiifan waayey buu yidhi ninkii maalqabeenkii markaa maxaa u baxay waxaan qofka bini aadamka wareerinaysa waa adduunyada weeyaan waa meesha culammadu ay yidhaahdaan war hadba intay adduunyadu inoo biirto walwali walbahaar biyo murug baa inagu biiraysa hadba inta iimaanka iyo diinta iyo taqwadu ay noo biirtana raaxa inoo biiraysa cabdullaahi ibnu cabbaas radiyallahu canhuma ayaa odhan jiray qofka cibaadaysta ee ilaahay xidhiir fiican la yeesha ee salaadiisu ay hagaagto ee cibaadadiisa ilaahay aqbalo 5 nicmadood baa ilaahay adduunka dusheeda uu ku siiyaa nuurun fil qalbi buu qalbigiisa ilaahay nuur buu dhex dhigaa وضياء في الوجه وجهي سنة افتين باك بحا وقوة في البدن جركي سنة إلهي قوتي حوق بو قليا وسعة في الرزق أرزاقتي سنة إلهي با أواسعي وبركيا ومحبة في قلوب الخلق خلق قدنا إلهي قلبي قد كالقعيل با إلهي أقليا شانتاس نعمة دون وحال لقو قادا إلا لقو هلا وحريرك إلهي وكو أتكادا نور في القلب قلبك النور با إلهي كو قلين الله ينو قليو الله ينسي النور كاس نور قوام حي وحدا علماء وبصيره
وإندها قلبك إلهي قفك أفريو وحي حلالنا وحكو أركا إندها وحي حارانا إندها بكو أركا حق يا بادلك إندها قلبك وكوكلا أركا خالق يا مخلوق فرقك ودحي إندها بكو أركا أدوية قابن إني قابن تاي أدوية يا آخرة وينك بدل لو وحكوكلا أركا وإندها قلبك حدي إلهي نورك قلبك وكسيو تعيش على بينة عدام بعد أدوية أدو الطريق عدد مريسا ما خساريس وضياء في الوجه وجهي سنة إفتين بك بحبور إفتين الله إنه إفتين يا وجهي مؤمنك هو عجيب أدول عك حتى هيسن مول وليو مول بهاريو مركز وجهي سواحد كارك سافر حد يا باش عشد يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وصفات أصحاب صفات الصحابة ويان إن ذاتك مقالة مدينة كعصب الرميق مقالة مدينة يمادة markay arkaan Abu Hurayra iyo Abu Bakar iyo Umar iyo ragaas fuqarada muslimiinta ee muhaajiriinta bashaashada iyo farxadda wajigooda ka muuqata markay arkaan waxay isleeyihiin wala ninkan nimankan lacag ba halka joogan walaakin ilaahay waxa uu leeyahay may maaha waxa ka iftiimaysa lacage waxay wajigoodu la iftiimaya waxay leeyihiin ta'affuf way dhowrsoon yihiin oo bini aadamka baahidooda uma sheegtaan baahidooda bini aadamka uma sheegtaan way qarsadaan habeenkii ba ilaahay u sheegtaan habeenkii saacadaha dadku ay hurdaan bay kacaan ya Allah baahidaasaan qabaa insi ya Allah ubadkii baan garan lahay hagaaji ya Allah nolosha xiriir igu noqotay ii wasic ya Allah inaan ku dhawaadaan rabaayo ilaahu albaabka ku soo maray ifur ya Allah raxmadaada waan u baahanahay in xariiso ya Allah hooyo iga bugtay ii caafi saacadahe saacadaha rabbul aalamiin ku samada adduunyada uu imanayo uu leeyahay yaa waxay weydiisanayaan siiye ayaa toobadkeena toobadiisa han aqbale ayaa dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe saacadaha haddaan kacnoon baahideena ilaahay u sheegano ilaahay baahideena isaga inoo daboolaya diyaa'un fil wajhi وصحة وقوة في البدن ابن عباس عبادة markaad maqaam kila doonay uu qofku ka gaaro waxa ilaahay siiyaa buu yiri jirkiisa ilaahay quwad buu galiyaa aqligiisa quwad baa ilaahay galin fahmadiisa ilaahay quwad galin jirkiisa ilaahay quwad galin waxa dadka 100 jir 120 jir quraanka ku akhrisanay bila nadarad oo kiyaala tirada Soomaa 100 jir baad arkaysaa habeenkii ka hor kacay salaada leelka salaada kaaga soo horeynaya shaqeynaayo umada u khidmeynaya وسعة في الرزق بود أرزاقنا والله واسعين بودي إما كأنك أرزاقنا إن لنا واسعية وهنجعلها سوما أسباب أرزاقنا لقوا واسعية ما تقانا وعبادة إلهي أتكيسون حجير كأذية إلهي نقد حيوان أتكي بس ومحبة في قلوب الخلق خلقي قولنا إلهي كالقعيل وقلبي قد كودي مؤمنك والله جعليه لأن إلهي با جعلادي إلهي بو رالي قليه إلهي بو جعلادي إلهي بو أماني إلهي بو دوادي كونك إلهي با كتلي مركع إذا حب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم توضع له القبول في الأرض بنبي يري إلهي أضل مرقو رالي كنقضو جعل هذا جبريل بو يري وليه هبل واد جعل هذا رالي با كنقضو جعلو جبريل با جعلان بنبي يري جبريل الملائكة ودن بو كو أمر يا وليه أضل إلهي با رالي كنقضو جعل هذا خلقك السماء كنو لودن با جعلان يا ثم قبول يدا أرض إيمانا سقبول كوا معي خلقك أدوك الجوغو دبا إلهي أسخر إلهي جعليسين سرت نولش waxa weeyaan Allah ku abuuray xiriir fiican la yeelo inagu dad badan sirta nolosha lacag bay ka raadiyaan shaqay ka raadiyaan dhoof bay ka raadiyaan tacliin bay ka raadiyaan qabiil bay ka raadiyaan masab bay ka raadiyaan may maaha sirta nolosha hada doon inaad heshid muftaxigu waa ilaahay xiriir fiican la yeelo بقدر خوفك من الله يهاب الخلق منك بول سليمان وحولي وبقدر حبك لله عز وجل
بقدر حبك لله يحبك الخلق وبقدر انشغالك بأمر الله يشتغل الخلق بأمرك حبين تاد أديكو إلهي أد جعلاته أي مخلوقنا كو جعلانا يا حبين تاد إلهي أديكو أد كبغضو أي مخلوقنا أديكو كاهي بيسنا يا حبين تاد إلهي طاعت ديسي دين ديسا أد نفت هذا كن مشغول سد أي مخلوقك لنا باهد هذا الله در باهد هذا كو دبوليا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ولا الكاغا مسلم كامرك هذا غرغاري سد إيه غرغار كيسا أد كن مغانتا هينا adigana gargaarkaaga ilaahay baa kugu maqan ogow hal fiirso walaalkaaga muslimka ee islaamnimadu niga dhaxaysa u gargaaraysa oo ilaahay ajar kaga doonaysa waad u khidmaysay waxbaad u qabatay waad u shafaacad qaaday ergaad u noqotay ergo ya waad la socoto waad raacday meel baad u raacday muraadkiisii saad ula soo qomiso adigana baahidaada ilaahay baa ku daboolaya ogow marka sirta noloshu waxa weeyaan إلهي عز وجل حدود في عنه الله يلعنه قلبك وحكو راح يستوى وإلهي ذكرقيس خلقك وحا إلهي كوكو سخريا وإلهي طاعديس وحا قلبك هذا كل نوريا وإلهي ذكرقيس وحا أرزاقات لكوكو واسعيا وإلهي طاعديس وحا مارتاني نولش عافمات قاد كوحشا وإلهي طاعديس عبادة إنكم أنت وحا سمنا ضد بدن وهيستان عبادة إسلام نمدو يدين في النوغو يريس هذا صوت هاي هذا صلاة هاي هذا حج تهي هذا زكاة تهي هذا دين لقى شقاية تهي هذا دين دتك الله برته هاي هذا دين لبرته تهي هذا حجابي أسر لقاته أي تهي وحنوها سنة عبادته إلى آخره وحتر كيدو كبل عمايو مي أدو يدنا جوكتن الله هذا يرى قابن وحيكون هكاك يسوى إلهي طاعديس حدود في عن لي الله بس إلهنا إنك أوبا جزاك الله خير شيخ الله أكبر إلهي إنك أوبا كن لي كما أريد أكون لك كما تريد كتاب طريق الهجرتين إمام ابن قيم الجوزي رحمه الله قصده حكو شيغي نبي الله موسى عليه السلام markuu nabi shucayb ariga uu jirayay dhul wuxuu ariga ku raacay maaragtaan iyaga iyo dhurwaagu ku badan yahay ariga marka la raacayna lama jeefsan karo geeliya looda marka la raacayo waa la jeefsan karaa laakiin arijuruhu ma jeefsan karo waayo dacwada ayaa ka dafaysa dhurwaaga ayaa ka qaadanaya Musa alayhi salaam uu daalay marka deena geed buu hoos fadhiistay baa isagoo daalan dhinacna uga baqayo dhurwaagu inuu xoolaha ka qaato ka dafo ayuu yar jeefsaday hurdadii baa la tagtay mar dambe markaa nabi Muuse uu baraarugay ushiisiibu waaye ila ulbu sitaa mugta markaas arigii buu dhex yimid wuxuu arkay dhurwaa ushii nabi Muuse haysta alayhi salaam oo ariga neefka baal martaba u soo wicinayo ku soo celinaya markaas nabi Muuse yaabuu sidaa u eegay waa dhurwaagu ariga uga baqayba u soo ilaalinaya markaas la haatif dhawaaq buu maqlo lagu yiri kulli kama uriidu akunu laka kama turid ya Musa sidaan anigu aan doonaya hadaad ii yeesho sidaan adigu aad rabtana anaga ku yeelana ba Ilaahay ku yiri sida rabbi doonayo hadaan yeelo sidaan inaku doonana Ilaahay noo yeelo dad badan baa kula nolosha maanta fahmi laanahay nolosha hadaad cibaadada ka dayi weyda macaankeyga ma fahmi karaysid waad wareeri هذا وخي هذا ورسلنا ملك الموت كوي من اوغو لكن هذه حريرك الهي انا تكيسنو اون ايمانك اسلام نمدا صلاه عباده دينتينو اي نغا نقوتو ماركتان دقن او ايسن نغا نقون دغيسي كليا او دينتو دقن اي نغا نقوتو waxaad arkaysaan adduunka dusheedaan janno ku galana janno dadka adduunka ku nool baa waa afar qaybood ba waa imisa afar qaybta koobaad waa nin adduunka dusheeda inta la joogo janno ku jira maalintuu dhintana laakiin naar buu galaya kow ka labaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu galaya laba ka saddexaad adduunka inta la joogo cadaab buu ku jira cadaab ayuu ku jira laakiin markuu dhinta jannu galaya ka afraad
adduunka intuu jooga jannuu ku jiraa maalintuu dhintana jannadii weyneed buu galayaa dadka adduunka ku noolaaba afartaaba si kale haddaan u dhigo mid waxa weeyaan waa janno ku sug mid waxa weeyaan waa cadaab ku sug midna waxa weeyaan waa cadaab janno ku sug midna waxa weeyaan waa janno cadaab ku sug laba gaaladay khusaysaa labana muslimiintay khusaysaa labada gaaladan horta inii macnaynaya dhegaysta waa gaal weeyaan laakiin tharwa ilaahay siiyey dhaqaala ilaahay siiyey hanti buu leeyahay oo gaalnimada waxa u dheer waa hanti gaalkaasi adduunka dusheeda jannadiisii buu ku jiraa maalintuu dhintana cadaabkii weynaa buu ku dhacayaa addunya sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir say janno adduunyada ugu tahay kaafirka waa kaafirka hantiilaha laanna jannadiisu waa maxay halkan adduunka intuu jooga wuxuu doonuu samayn waxba ka xaaraan maaha waxa uu doonuu cuni waxa uu doonuu cabbi waxa uu doonuu daawan meeshuu doonuu mari suu doonuu u fuuli suu doonuu u socon cidduu doonuu u tegi wax haba yaraatee soo joojinaya oo qabanaya haba yaraatee ma jiro shahwadiisa adduunka dusheedu ku gudanaya kaas marka jannadiisii halkan weeyaan isaga bimacnaa shahawaadkiisii adduunka dusheedu ku gudanaya weeyaan waxa uu doonuu samayn waxa uu doonuu cuni waxa uu doonuu cabbi dharkuu doonuu xidhan suu doonuu timaha u xiiran meeshuu doonuu tegi waxa uu doonuu fuuli siduu doonuu u hadli halkan weeyaan jannadiisii isaga laakiin maalintuu dhinta maxaa u dambaysaa darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuuna baa ilaahay yidhi gaalada ha cuneen baa ilaahay yidhi iska dhaaf ha iska cunaan oo ha iska tuntaan oo ha iska raaxaystaan oo hididiladuna ha degto hididiladu waa maxay waxaabaan samaynay waxaabaan samayn doonnaa waxaabaan gaadhnay waxaabaan soo wadnaa kolba cilmi baan gaadhnay macluumaad kalaan keenaynaa horumar baan adduunka ku soo biirinaynaa ilaahay baa la ilowsiinayaa laakiin waxaa ilahay yidhi gadaal dambaysa ogaan doonaan baa ilaahay yidhi afara'ayta in mattacnaahum siniin uma jaa'ahum ma kaanuu yuucaduun ma aghnaa canhum ma kaanuu yumatacuun ka warran baa nebi maxamed lagu leeyahay haddaan adduunka dusheeda in yar ugu raaxayna kuwaas kadibna wixii loo yabohay uu ku yimaado geeridii baa ku imanaysa qofka ajashii baa ku daynayn deedna maxaa ku xiga tamatucii adduunka dusheeda ay ku soo raaxaysteen hadha waxba uma tarin baa ilaahay way iloobi doonaan kam labithtum fi lardi cadada siniin qaluu labithnaa yowman aw bacda yowmin fas'al ilcaaddiin qaala in labithtum ilaa qaliilan low annakum kuntum taclamuun afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathaa wa annakum ilayna laa turjacuun banka qiyaama markaysa soo taagaan baa la weydiin la odhan doonaa arlada dusheedii imisaad ku soo nagaateen markaa bay odhan doonaan maalin ama maalin barhkeed aawe tamatucee adduunka ku soo tamatuceen ay ku soo raaxaysteen ma jiro marka gaalka sarwada haysta ee hantiilaha bimacnaa jannadiisii waa halkan jannada loo jeeda waa maxay shahawadiisa halkanuu ku gudanaya wuxuu doono dhan waxa nafsadiisu ay doonto oo dhan halkanuu marka ugu samaynayaa markuu halkan ku dhammaystana waxa ilaahay yidhi fasawfa yaclamuuna ma markaa u dambaysa kaasi waa kaas gaalka labaad waa gaalkee waa gaalka faqiirka waa gaal laakiin gaalnimadiisa faqri baa u dheero derbi jiif weeyaan meelahaabuu khamriga intuu cabuu derbiyada ku dhacaa adduunka dusheedii sidanuu ku yahay oo cadaab buu ku jiraa aakhire markuu tagana cadaabkii weynaa buu gali walciyaadu billaah xadiis waxaa jira faina ashqa alashqiyaa man ijtamaca calayhi faqru dunya wacadaabu alaakhira fii shucab iliimaan buu ku sheegay imaam bayhaqi raximahullah dadka adduunka soo maray ka ugu khasaaraha darani waxa weeyaan ee ugu hooga badani waxa weeyaan waa ninka adduunka dusheeda faqri ku haleelay aakhirana cadaabtii aakhira lagu tuuro walciyaadu billaah labada kale muslimiintay khuseeyaan waa mid adduunka dusheena cadaab buu ku jiraa laakiin markuu aakhiro tago insha allah jannuu gali ilahay raxmadiisa ka quusan mayno waa muslim adduunka dusheeda islaamnimada kuma dhaqmo macsi buu iskaga jiraa qaflad buu ku jiraa diinta dhinac uu ka haystaa dhinacna diinta kama haysto adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa
waxa maanta adduunka dhiig daadanaya oo dhiigga islaamka haddaan maanta lahaa innaka dalkeenna soomaaliya ee ka soo jeedna kulligeen soomaali baan iska wadanahe waa dad isku caqiide ah isku luqo ah isku madhab ah isku diina isku dal ah waa qowm keliya ku nool waddankeenna waddankan imse qabiil baa ku nool imse ummad baa ku nool yaa sheekh dhowr iyo 40 sooma wax qabiil isku leynay maad aragteen may limaada inagoo muslimiin oo shahaadana qabiilada iskugu dhamayn oo meel walba aad ka maqlaysaa mar walba midabada dagaal ba ka dhacay oo yaa islaynaya reexadiye iyo reeqafa islaynaya ma sabab waa tarku diin weeyaan maadaama diinta sidii la doonaya aanu qabsan weynay cadaabkii adduunka ku jirnaa ogaada cadaabkii adduunka ku jirnaa in dad muslimiina oo ashahaadanaya dhiigooda ay isxalaalshadaan ay isdhacaan oo ay isboobaan oo ay isku xadgudbaan oo isxasdaan oo isxantaan oo isdhammeeyaan oo qofka kale dhiiggiisa u xalaashado maxaa keenaya waxa weeyaan waa godobta diinta islaamka laga gala lagu dhaqmi waayey markii diintii la baran waayey laysku xakumi waayey laga shaqayni waayey lagu dhaqmi waayey laysku xidhiidhini waayey ilaahay jalla wacala muxuu sameeyey markaa quluubteennii baa ilaahay markaas ku dhiftay وإنك أركا يا ودن كان دوري أفرتن قومي دول بين يقولون نول ولا قال الله هذا يسمى جرته نبض بالقوة النولية إنك هنا نبض بالقوة النولة نبض بالقوة النولة ونرزقت كوها يسنا وأمن كوها يسنا ودين تاني سحر الرياضة أنا كوها يسنا ودن كأني أكسو جنينا أيضا دتكين بقول مسلم اسكو أفكري أي وديهنا عذاب أكسو عذاب كسوة قبيل كوا نوع من العذاب ويان لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ابو النبي يقول انا قد بدا قال لما دبها وقول نقولين ابو رسولك يدي بركينا كلا او قورتا كجر او ديغينا سلاشتان هداد اركت امه اسلام شيء نسبه شيغانيسا oo ninba ninka kala dhiigiisa u xalaashaday xadiiska waxa uu nabigu sheegay islaamnimo ma aha waxaas gaalnimadii ba dib loogu noqday jaahiliyadii ogaada cadaabka marka muslimiinta diinta aan ku dhaqmin ay ku jiraan dagaalka qabiilka kamida qaxootiga kamida qaxa ayaa kamida umada 8 albaab jahannama loo furay ee dhulka gaalada u sii socota ayaa kamida waa cadaab nooc min alcadaab inuu muslimku yiraahdo maanta dhulka islaamka nabadi ma taalo oo tacliini ma taalo oo dhakhtar fiican male oo nabadgelyo ma taalo oo arsaaqad ma taalo aye arsaaqada ilaahay baa haya ولكن isagu wuxuu yiri arsaaqada yurub bay taala amniga ilaahay baa haya walakin isagu wuxuu yiri nabadgelyada yurub bay taala caafimaadka ilaahay baa haya laakiin isagu wuxuu yiri caafimaadku wuxuu yaalaa yurub iyo mareykan buu yaalaa wixii ilaahay laha ayaad u nisbaysa Soomaha dad kale waa wuxuu ilaahay ka bada marka adiga dadkeeni inaga baxay ee dhulkeena ka baxay dhulka wada u baxay oo dhan maanta waxaan oran karaa 80 ama 70 mujtamacii naga tagay way ku daayeen ogaada in yar baa ka nool maanta in yar baa damiir leh oo dadnimadii iyo diintoodii sii haysata shalay mu'tamarkii dhamaaday culimadu ay soo gabagabeeyeen ayaan dhalinyar ka timideen Minnesota ka yimaadeen iyagoo dhowr ah markaas aniga iyo Sheekh Cabdirashiid ayay u yimaadeen oo markaa bay miskiin nagu la tukadeen way noo warameen markaa aan 2004 bay ugu dambeysay qaaradaas waxay yiraahdeen bariga aad timaadeen waan maqalay dadku way fiicnaayeen oo muslimiin bay haayeen oo dadku masaajid ay u badnaayeen laakiin maanta xaga kale beerta loo batay xaga beerta ma taqaanaan xaga balwada iyo khamriga iyo fisqiga loo batay bay yiraahdeen ee noo soo gurmada noo kaalaya waa dhalinyar waliba qaarkood halkaa bay ku dhasheen dhulka gaalada oo muslimiintu ay ku siiyaan waa cadaab ugu ma aha raxmad marka muslimka diinta aan ku dhaqmaynin adduunka dusheeda cadaab buu ku jiraa laakiin aakhiro markuu tago arrinkiisu ilaahay buu hor yaallaa in shaa cadabahu hadduu doonana ilaahay waa cadaabi hadduu doono ilaahay waa u naxariisan taasi waa baabka ilaahay bay u taallaa laakiin ka afraad baan u socdaa i dhegaysta waa kee waa mid adduunka dusheeda janno ayuu ku jiraa markuu dhintana jannadii weynayd buu galayaa waa kee waa muslim mu'mina
oo adduunka dusheeda ilaahay sharcigiisa ku dhaqmaya oo diinta ilaahay ka shaqaynaya oo diinta ilaahay ku dhaqmay oo ummadda baraya diinta oo diinta noloshiisa ay ka muuqato muslimkaasi adduunka dusheeda wuxuu ku jiraa janno maalintuu dhintana jannadii weyneed buu geli doonaa insha allah dhahda yaa uu diyaara janno ku sugan uu helo insha allah dhahda janno ku sug ilaahay hayna siiyo ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa laga sheegay isagoo 3 maalmood aan cunto cunin ayuu odhan jiray low yaclama almuluuku wa abnaa'uhum maa naxnu fiihi laja'laduuna bisuyuuf waa nin 3 maalmood cunto aanan helin oo aanan cunin oo masaajid iska ictikaafsan mar ummaddu cilmiga baraa mar isagaa culummada wax ka barta mar ilaahay buu baryaa mar dadku ilaahay xaggiisa ugu yeedhaa 3 maalmoodna waa qatan yahay waxa uuna leeyahay dhegayso boqorrada iyo wiilashoodu nolosha aan ku jiro hadday ogaan lahaayeen seef bay igaga qaadan lahaayeen buud ama jadal macaanka aan dareemaya raaxada meesha laga raaxaysto maaha dhar fiican oo jirka loo xidho aqal fiican oo la dhisto gaadhi cad oo la wato magaasaan weyn oo la furto may raaxadu waxa weeyaan waa qalbigan oo ilaahay jalla wacalaa ku tacalluqma ood garataa waxa adduunyada ka dhacayoo dhan waa qadar ilaahay adigana wixii ilaahay kuu qadaray mooyaane wax kale kugu dhici maayaan wixii ilaahay kuu qoray mooyaane wax kale heli maysid waa inaad garataa ilaahay jalla wacalaa qof kastoo adduunka jooga wixii ilaahay u qadaray buu helaya wax kale heli maayo marka janno allah inooga dhiga adduunka janno ku sugo insha allah dhahada bilaal alxabashi radia allahu canhu ardaah markuu dhimanayay xaaskiisu ku dul barooratay ku tiri waa xasrataa markaasuu indhaha kala qaaday naa maxaad leedahay waa dumar iska qalbi jilicsan oo markaa waa iska barooratay naa baroortan iyo baroor diiqdan iska dhaafo waxaad tidhaahdaa waa farxataa maanta waa farxad iyo dhabuu yidhi markaasay ku tiri maxaa ku farxa waa adiga iga dhimanaya sakaraadkii baad wuxuu yidhi hadan nalqa alaxibba muxammadan wa saxbah anigu baritoole qofkaan la kulmi ma taqaanaa muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii baan la kulmayaa buu ka yidhi kuwa faraxsan bay adduunka ka baxayeen oo dhimanayeen lanna noloshan adduunyada iyaku may dayicine waa ka faa'iidaysteen kumay ciyaarine ilaahay bay ku garteen kumay shahawaadkooga kumay raacine axkaamta ayay raaceen adduunyada may camirine aakhiraday camirteen aakhiradii markay hagaagsadeen noloshii adduunyaduna waa sii hagaagta markaas innagu maanta waxaan isku daynay inaan adduunyada dhisno oon qurxinno waan dhisnay haddana dadkii maanta raaxo ma hayaan qof kasta waa calacalaya maanta fa ilaahay jalla wacalaa hanu soo noqonno han toobadkeenno khaasatan dhulkanna ilaahay baana keenay anagu abaad ku dhodhalateen baan u malayn intiina badane ilaahay baa dhulkanna ina makansiyo ina dejiye soo maaha inde amni baan ku haysannaa arsaaqad baad ku haysataan diin baad ku haysataan dacwad baad ku haysataan nabadgelyaad ku haysataan soo maaha inde haddaba asbaabta waxaasoo nicmada ay noogu daa'imaysa waa maxay qur-aanka ilaahay ku sheegay aladiina in makkannaahum fi lard aqaamuu الصalaata waatuu الzakaa waamaruu bilmacruufi wanahaw can اlmunkar walilaahi caaqibatu lumuur baa ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala kuwa dhulka aan makansinin dhulka aan dejinno asbaabta dhulka ay ku makansadaan waxaa ka mid a salaaday ogaan baa ilaahay yidhi haddii dal kale aad ka timiday oo nin walba waan ognahay nin walba meel buu ka yimiday gobolladan waxaa ka imanay keniyadeenna ku yaalla soomaalidu ay leedahay ama dalkiibaa laga yaabaa in laga yimid oo loo shaqo yimid halkan haddii ilaahay dhulkanina keenay oo dadka dhulkan joogana maaragtaane ay dhib inoo geysan oo nabad iyo barwaaqo aan kula noolnahay waxaa la doonayaa xaq baa laynagu leeyahay ilaahay ina abuuray xaqiisa han ilaalinno oo innagu ka muslim ahaan qof bilaa salaadaya dadkeenna lagu arkin qoys walba qof bilaa salaadayaan lagu arkin aqaamuu salaata baa ilahay salaaday oogaan bimacnaa isaguna waa tukanayaa weeyaan
awqaadeedii buu ilaalinayaa aqoonteedii buu leeyahay dadka kalena waa u yeedhaayo wuxuu yidhaahdaa salaada ha tukanayna mariya wa aatu zakaata zakadana way bixiyaan buu ilaahay yidhi maalqabeennadeennan haddaad muslimiinta inagula nool magaaladana fuqarada ducafada ee masaakiinta ee mustaxiqiinta uwa zakada haddii zakada la siin lahaa qof baahan oo miskiin oo faqiira laguma arkeen laanna tiradiinu ma badno muslim kastoo magaalada ku nool waxa uu noqon lahaa hani buu noqon lahaa baahi bini aadan ka kaaftoomay buu noqon lahaa oo sharaf leh oo amaruu bilmacruuf dadkay wanaagga faraya dadkan alla nooshihiin ra'sul macruuf ibn cabbaas wuxuu yidhi waa tawxiidka dadka laa ilaaha illa allah baa loogu yeedhayaa dadka islaamnimada la gaadhsiinayaa dadka waxaa la gaadhsiinaya tawxiidka loogu yeedhayaa wixii wanaagee sharcigiina faray baa la farayaa waraasulmunkarna waa maxay yanhawna cani lmunkar waa maxay munkarkaa dadka ka reebaysaan waxaa la yidhi ra'sulmunkarna waa shirkiga waa gaalnimada kufriga iyo gaalnimadana ummadda waan uga digaynaa on leenahay ka daayo ka toobadkeen ilaahay uga soo noqda walilaahi caaqibatu lumuur afartaa khasnadood bay culimmadu leeyihiin waa asbaab atamkiin weeyaan xataa hadday dhacdo dowladdu inay noqoto dowlad islaamiya oo shareecadda islaamka dabaqaysa dacwaddu istaagi mayso bal muslimiintu waa inay dacwadda ka shaqeeyaan wanaag faridda iyo xuma ka reebidda waa inay shaqadaa noqoto shaqo joogtaa oo dowladduna ka shaqaynayso oo muslimiinta dhammaanna ay ka wada shaqeeyaan waa asbaabta dhulka ilaahay nagu makansiinayo ee dhulka ilaahay nagu dejiyo ee ku barakoobayno ee amniguna ku siyaadaayo ee barwaaqaduna xagga samada iyo dhulkaba ilaahay nooga keenayo ibraahim alkhaliil calayhi salaam markuu haajaro soo qaadaya ismaaciil ee uu ka keenay quds shariif ilaahay ay noo xoreeye uu afar buurood dhexdooda uu keenay waa meesha maka ay ku taallo oo bilaabaad oo bilaa biyo ah oo wehelna aanan ku haysan halkaa markuu keenay buu jibriil ku yidhi xaaskaaga dhaadhici waa uu ka dhaadhiciye faraskii ilmaheedana u dhiib waa u dhiibay baad iyo biyo waxaad u haysa si uu siiyey ka noqo buu ku yidhahdo qudus ku noqo waa dhul qabow buu ka keenay oo beero leh oo camiran oo qurux badan oo dooga oo dadkii ehelkeedoo dhan ay joogaan meesha uu keenayna waa maka waa afar buurood dhexdood samada mooyaane xataa dhulka lama arka baa layidhi wadi lagu dhaadhacayo qofku markuu ku dhaadhaco baa layidhi buurihii iminka waa la baabiiye berigaa buuraha unbuu qofku arki jiray samada mahayna meel kale qofku uma bannaana baa layidhi halkaasaa nebi ibraahim lagu yidhi xaaskaaga haajarana dhaadhici baadiye biyo waxaad u wata siiyo u dhig ilmaheedana u dhiib kana noqo adiguyo hana soo daymoonin hana la hadlin baa lagu yidhi hadday kula hadasho uu sii jeesta markiiba haajara hadashay ibraahim wuu istaagay ma halkan baad nagaga noqotoodna dhigtay annaka madaxuu u ruxay maxay ka dhigan tahay weyaan nacam way fikirtay waa nebigu amar alla mooyaane amar kale kuma socdeen malaha waa la amray dee allahu amaraka bi haada halkaa inaad aniga ilmahaygana dhigtood nagaga noqoto ma ilaahay baa ku amray ishaara ilaa nacam idan laa yudayacana bay ku tiri marba haddii amar alla halka aad nagu keentood nagaga tegtay lama dayacaye asagaa nagu filan iska soco bay ku tiri haweeneyda se ilahay u taqaana ka warrama haweenkana waxaa la rabaa dadka taariikhdooda dahabka ilaahay uu ka reebay ee axaadiista saxiixa nebigeenu noogaga warramay inaad ku dayataan ood ilaahay ku xidhnaataan ood mu'minaad noqoto gabadhu gurijoog noqoto oo dhasheeda diinta ku tarbiyadayso ibraahim calayhi salaam markaa u dhaqaaqay khalaas jabalu abi qubays buurta la yidhaha markuu gadaasheeda uu ka wareegay uu gartay xataa hadduu soo daymoodana inuusan arkaynin ayuu xagga beytka ilaahay soo qaabilay baa la yidhi markaas في سورة إبراهيم واك إلهي قرآنك كيري شيخ عيدي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الكابو كدعي سوجستي يا الله reerkayga halkaasaan dhigay buui halkaa baydkaagii kacbada xajar alaswadka meeshani baydkii ilaahay ee xurmadda lahaa inay tahay nebiyadoo dhan baa yaqaana duufaankii zamankii nebi nuux adduunyada ka dhacay
ayaa daboolay baa la yidhi wailaa nebi kastoo adduunka yimaada baa la yidhi halkaa uu soo qadsan jiray oo ilaahay buu ugu dhowaan jiray ku soo cibaadaysanayay qaarkooda kutubtu waxay dhigaysaa ummadahooga marka la halaago maka intay yimaadaan bay ku cibaadaysanayeen dabeedna halkaa bay ku dhimanayeen ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi halkaasaan dhigay haye meeshaas zaraacad male welibana beer male beera male waa dhul kululoo engegsan biyo male rabbanaa liyuqiimu salaa ilaahu waxaad ka dhigtaa kuwa qoyska halkaa aan kaga tegey kuwa salaadda ooga ilaahu ka dhig buu yidhi salaaddu waa diin salaaddu waa cibaara can iddiin bay culimmadu leeyihiin qofka diintiisa meesha laga gartaa waa salaadda weeyaan salaaddu waa asbaab altamkiin ibraahim calayhi salaam qoyskiisii waxa ilaahay ka dhigay qoys salaadda oogaya dhulkii baa ilaahay dejiyey kana waa ka maka noqotay marka innakana dhulkan ilaahay baana keenee hayaanan ku qancin maaragtaanay cibaadada keliye een culimmadeena han isgarab taagno oo dacwadda han isku taagno oo qofka muslimka gabadha muslimadda iyo inanka muslimka intuba diintan xil baa inaga saarana insha allah inakuna diinta dadaalkayga hanu guntanno han ka shaqayno oo dadaalka diintu wax adag maaha adigu waxaa laga rabaa gabdhuhuna gabdhaha inay ku dadaalaan ragguna ragga inay salaadiyo khayrka ugu yeedhaan ubadkeenna inaan madaarista keenno culummo ka dhigno oo ubadkeennu innaka ayna dhaamaan agayabaadu haddaad diin baranin ood adduunya un dharaari habeen ka shaqaynaysid ilmahaaga khadka ka weeci khadka hore aad waad soo martay ka weeciyo xagga sharciga u weeci xaafid ha kuu noqdo caalim ha kuu noqdo nin macallimaa jiraya len macallin qur'aan buu ahaa carab jabaquu lahaa markaasaa ardaydii buu marka alifka u bilaabay ninka carab jabaqada leh ra' ma karo ra' markuu yidhahda ha tiraadidba wuxuu yidhahdaa la markaasuu qoraa ra' buu qorayaa sabuuraddu ku qoraa ra' markaasuu leey tani waa maxay waa ra' dhahada la dhahada ila isagii la buu leeyahay ma karee ra'e markaasay ardaduna yidhahdeen la markaasay anu carab jabaqaan qabaaya idhaama oo la dhahada markaa meel la unbay yidhahdaan waad fahamteen waan u malayn ubadkeennu innaka hayna dhaamaan siday inagu dhaamayaan xagga cilmiga u weeci culum baan u baahannahay fuqahaa baan u baahannahay muxadisiin baan u baahannahay khutabaa baan u baahannahay ducaad baan u baahannahay haddaad aragta mujtamac diinta baranaya oo masaajidda dhisanaya oo rag iyo haween xagga masaajidka iyo madrasadda u yaacaya oo diinta ilaahay dadaalkayga ku lug leh haddaad aragto mujtamacaasi horey u socdaan ogaada haddaad aragta mujtamac dhanaca xiirtay oo gabdhahoogina surwaalla xidheen oo odayadiina maqaaxi fadhiyaan qabyaaladii dalku ku dime ka sheekaynayaan waxaad aragtaa mujtamacaasi god buu ku sii dhacayaa god ilaahay buu leeyahay mujtamacaasi dadka waddankan aan kula nool lahayna akhlaaq wanaagsan baan tusaynaa insha allah dhahda maxaan tusaynaa limaada akhlaaqda maxaan u idhi salaada aad tukato ninka gaalku ma arkaayo waayo maskiidka ma soo galaayo soonka aad sooman tahay ma arkaayo waa sir soonku addoonka ilaahay buu ka dhaxeeyaa zakada aad dhiibayso male isaguyo xaqba uma leh oo dadka muslimiinta u xaq leh ee sinfigii qur-aanku sheegay xajka haddaad tagtana xajka intaan la gaadhina waxaaba taalla meel la yidhaahdo halkaa ma dhaafi karan inaan muslim ahayn ayib arkaan alislaamkii gaaladu midnamaba arkayaan laakiin gaalku muxuu arkayaa bal ii sheeg muxuu arkayaa dhaqankeenna see ula dhaqmaysaa markaa haddaad been u sheegta ka warran adoo muslim haddaad ballanta baajisa ka warran adigoo muslima haddaad dadka agtiisa ku xamata ka warran adigoo muslima haddaad xaqiisa ilaalin weyda ka warran adigoo muslim ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa nin yahuudiya u yimiday baa la yidhi nin oo ay wata welibana markaa buu ku yidhi ibraahim maadaa lagu yidhaha haa anaa la yidhaha buu yidhi su'aal baan ku weydiina ha ka cadhoona ka jawaab hay sheeg buu maxay tahay wuxuu adiga iyo aygaygii midkee fadli badan buu ka yidhi nin aad isku diin aad ahayn haddii su'aashaa ku weydiin lahaa ka warran anuu waa feedhi lahaa soo sidaa ma hadde sheekhii uu fikiray saasuu u fikiray aygii buu eegay isagii baa is eegay ninkii buu eegay markaa buu ku yidhi aakhire markaan tegay ilaahay lay hor joojiyo haddii kitaabkayga gacanta midig layga siiyo jannada la ii diro aygaaga maalinta anaa ka fiican buu yidhi laakiin ilaahay kama yeelee banka qiyaama haddii lay joojiyo oo kitaabkayga gacanta bidix layga siiyo naar laygu tuuro maalinka aygaaga iga fadli badan buu ka yidhi
ninkii gaalka uu yaab wuxuu yidhi wallaahi akhlaaqdaas waa akhlaaqdii nebiyada buu yidhi diinta islaamkan rabaayo ashahaada ii qabta buu ku yidhi dhaqan baa ummadda lagu bedelaa dhaqan akhlaaqdana qofku ma helo ilaa qofka iimaankiisa iyo diintiisa la dhisa mooyaane lidaalika insha allah inaan masaajidda camirno dacwadda iyo diinta ka wada shaqayno wada niyooda insha allah oo diinta aan barannay een maqalnay culammadu habeen iyo maalin nagula hadlayaan inaan dhaqan u bedelnayaa u diyaara ilaahuna waafaji dhahada allahna nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma calaa nabiyina maxamed الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا جزاه الله خيرا شيخنا runtii ilaahay subxaana wa tacaala wax badan buuna xasuusiyey mawaadiic badan buu ka hadlay dadkii gartay fahmay ilaahay waafaji allah naga dhigo jazaahu allahu khayran sana safar buu soo galay sheekheena annakan aan u ducayno ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala waxaan leenahay allah jala jalaaluhu dacwadiisa iyo socodkiisa allah barakeeyo camalkiisa allah khaalis ka dhigo ilaahay subxaana wa tacaala hadafkuu leeyahay rajadiisa iyo qalbigiisa waxa ku haya allah u sahlo في الدنيا والآخرة marka walaalayaal allah idin barakeeyo dabcan hadayaan baan mar hore ama sheego anigii waxa weeyaan reer Nakuru waan ahay waxa weeyaan reer deegaankan ahay hadda sheekhan soo dhaweynay sheekha wuxuu noo sheegay in la calaamadeysto xabad loo qaataa loo baahan yahay ninka sheekh hadda kelimad u dambayso ka hadlay akhlaaqdu ka hadlay dadka sifada wanaagsan bay ku soo hanuunaan salaada ma arkaan oo zakada ma arkaan waxyaabaha wanaaggan sameeyna ma arkaan sifaad wanaagsan bay ku hanuunaan insha allahu tacaala laba qisan ka soo qaadaa mid deegaamadan hadda intaan wareegayo socday mid gafana ah oo gaalada ka mid ah ayaa qola muslimiina u tageen arrin khaas bay u socdeen oo inay kala hadlaan waxaa jirta marka deegaankaasi magaciisa sheegi maaye in ninkii gafana ahaa uu bixiyey in lagu sameeyo arrimo caam ah masaajid tacliim madaaris dhulkaasi dowladda bixisay waxaa la siiyey dadkeenan muslimiinta ah muslimiintii gudahooda meesha way ku yar yihiin oo isku khilaafeen ilaa yowmina hada dhulkii waa laysoo tusay dhulka waan soo arkay masaajida laga dhisi lahaa madaarisa laga dhisi lahaa waa isku khilaafsan yihiinoo dad baar waxay rabaan damo khaasa inay u adeegsadaan gaalkii marka oo madaxweynaha gobana ahaa waxay u tageen dhallinyaradii oo deegaankaas ka mid ahaa inay weydiistaan arrimo kaloo khaasa ay ka rabeen markaasuu wuxuu ku yidhi idinka soo muslimiin ma ihdin nacam dhulkii aan idin siino oo arrintii caamka loogu talagalay ilaa yobina hada oo ku heshiin la adihiin maxkamadda saraana arrintiina ay taallo ee dacwadiina waxay soo gaartay maxkamadda weyn muslimiina tihiina soo kitaabkiina idinkuma filna u dhah inaad u xogan tagtiin ilaahay soo idinkuma filna maxaad u samayn weyseen ani hadda gaal baan ahay laakiin qof muslina ay soo koriyey insha allah waa islaami doona laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad heshiisiinoo 3 milyan lacagtan waddanka ah ama diyaar la ahay inaan ku dhiso masaajid oo aniga aan bilaabo idinka kaliya heshiiya qoladii u tagtay waxay yidhaheen xishood baan waxaan u tagnay iyo waxaan ka hadli lahayn iyo meelaan u socnay meelaan ka imaanan garan weyn haddii qof gaal uu ku leeyahay muslimaad tihiin kitaabkiin ma u noqotiin oo maxkamaddeenna maxaa ka soo doonteen meesha waa nagala weynaadeen waay yacni meesha waa agteena wax weyn baad ka aheedeenoo inaa xukuntantiinoo heshiisiin idinku dayanaan rabnay laakiin maca alasaf ashadiid xaggaa soo aadeenoo kitaabkii waa ka tagteen u noqda ilaahay kitaabkiisa subxaana allah midda labaad waxaa weeyaan walaalayaal qiso oo dabcan ka dhacday dhinacaas maraykanka ninbaa dhallinyaro inay u tageen waxay ku talagaleen inay soo islaamiyaan oo diinta soo geliyaan ninka oo gaalka ah wuxuu saaxiib leeyahay in lagu magacaabo ibraahim oo soomaali ah markii diinta loogu yeeray markaasuu dha ibraahim soo muslim maahan haa de ibraahim ani isaga waa isku diin aan nahay oo dhan sababtu maxay tahay ibraahim ma tukanayo booy fareen oo leeyahay khamradaan isla cabnaa mar kastaan sheekaysanaa saaxiibaan nahay maadaama xaalkaasi muslimka iigu yeedhisiin ibraahim inuu muslim yahay waa ogahay oo dhah laakiin dhaqankiisa xumaa ibraahim
oo salaadii uu ka tagay ayaa waxaa sabab u noqotay dhowr qof oo soo islaami lahaa inay ka istaagaan diintii soo gelitaankeeda marka ficilkaaga xun dacwo noqona dacwo ila shar noqona ficilkaaga wanaagsan akhlaaqdaaga wanaagsan dhaqankaaga wanaagsan wuxuu noqonaa dacwo ila Allah hal arin aan ku dardaarmi insha Allah taala oo reer Kenya aan ku dhax arkay inay ka waantoobaan sifa caama waxa weeyaan walaaliyaal guriyaha waxaa noo jooga gabdha gaala ah noo wada shaqeeyo way qaaqaawan yihiin waxaan leenahay waa gaalo waxay yihiin ma lahan laakiin gabadhaasi gaalada ah oo madaxeedu uu qaawan yahay dharka oo jirkeeda ku dhagan xiran tahay dambi baa ka soo gaaray maalin kastoo aragto 24 saacan gurigay joogtaa indhahaadu way qabanayaan ilmaheena markay soo qaan gaaraan 15 ay soo gaaraan waxa ugu horeeyo dambi ku bilaabana waxa weeyaan gabadhan ajnabida ka ah guriga kula nool waalidiintu way sahladeen oo waxay dhaheen waa gaal weeytan la nafcalaha wala wax faa'iido ay leedahay malahan laakiin aday ku fidneynaysayo cunugaas yaro 15 jirka ah wuxuu arkaa markuu saan u soo weynaado oo xisaabta u bilaabato gabar gaala ah qaawan u adeegayso waxa weeyaan qadadii iyo quraacadii guriga ugu keenayso qolkiisa hagaajinayso soo galayso maalin kasta wuu daawadaa dambi baa u socdo aabihii guriga lahaa maalin kasta wuu daawadaa ayadoo qaawan dambi baa u socdo aqal qaliil waxaan arkay nin maqaayad ka furtay Nairobi aad baan ugu farxay gabdha ka shaqeynay way wada xijaaban yihiin waxaan ku iri ma sha Allah ni nasiib leedahay intaan muslimiin aad ka heshay markaas way kuwa muslimiin ma ahan laakiin waxaan u daneeyay customerka imaanayo inaysan dambaabin shuruudu waxaan ka dhigay inay madaxooda naga dabooshaan soo arin wanaagsan ma aha maadaama ay ku shaqeynayso oo gurigaas soo dhaq kula heshiinayso oo musqusha inay dhaqdo kula heshiinayso qada inay kariso kula heshiinayso waxaad ku amartaa min fadliki intaad shaqada ku jirto dharkan qaadana waa inaad qaadataa isxijaab way ogolaanaysaa diin ahaan waxa uu sheegay bal waxaad dhihi kartaa anigu muslim baan ahay gabdhahayga inay isqaawiyaan oo qof kala daawado ma jecli adigana maadaama guriga ka shaqaysid ilmahaygaad ka mid tahay waxaan kula jeclahay cawradaada in qof kale uusan daawanin oo maadaama gabar aad tahay qiimo leedahay xijaabanaatidu waxba laga arkin saas awgeed bisifa kale ugu sheeg lacalla allah jalla jalaaluhu an yahdiyaha mar guryaha gabdha qaaqawaan baa noo joogo waxaan leeyahay arrimahaasi waxa weeyaan fitna aanan la ogeyn weeyaan oo bisuhuula ku socoto maalin baan guri tagay oo gabar oo gurigeeda nagu marti qaaday markaasa anakoo quraanka saarayna meesha fadhiso ya gabadhii gaalada aheedo qaawan meesha iska soo dhaxgashay shaahbay iska wada kaadatiha yaani guriga si uu maamulin jirtay wax loo sheegay ma laan ogtahay gabadhii kale oo quraanka saarayna la joogtay aad bay u xishootay waxay sameysay garan weysay markaasay dhaxday bax ha soo gal meeshan dad aan joogin wiilashaada qaan gaari way joogaan awal wayna noolaayeen maxaa anakana noogu diiday inay noo soo gasho wiilashaadana raali uga noqotay inay daawadaan marka arintaas insha Allah taala waa iga dardaaran biidin Allah tabaaraka wa taala dardaaran sheekha noo dhameeyay gadaashiisa in la hadlo wax laga sheeg ma ahan dardaaranka u dambeeyay waxa weeyaan natamassak bil qur'aan fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون waxaad ku badbaadi kartid ilaahay uu kugu jeclaanayo intaan barwaaqo sheekha uu sheegay aad ku heli kartid waa inaad qabsataa ilaahay kitaabkiisa dhikriga ugu badan ugu weyn ilaahay ugu dhawaan kartid waxa weeyaan an yakuuna laka wirdi yawmi maalin kasta quraanka aad akhrisid inaad quraanka dhamaysid usbuuciyan mar inaad dhamaysid tobankii cisho mar waa inaad leedahay safar maraay ku dhex maraysid fii kitaabillah maanta oo kale arbaca ah haddii lagu weydiiyo kayfa xaaluka maca alqur'aan waa haddaad 5 juz akhrin jirtay waa inaad sheegtaa meeshaad maraysay iyo suuradda kugu dambayso aad dhahdaa insha allahu tacaala intaanan seexanin waa wardiga waan dhammaystiri doonaa ama wardigayga waan dhammaystirtay marka ikhwaani natamassak bilqur'aan cilmiga
wax kastaa la bartaa hadda iskuulaa loo batayo wax badan baa la sheegaa ilmihii iskuulay u aadaan mar waliba iskuulka la weyneeyaa waqtigii iskuulaa qaatay cabaadka ka yeeraya waalidiinta waad yaabaysaa wax kugu qasbay ma lahan waxa weeyaan cunuga 10 jir intuusan gaarin waad ka faa'iidaysan kartaa inaad ku shubto kalaamullah waalidkii iyo macalinka hadday isheshiyaan iska warqabaan 10 sano gudahood cunugan quraanka uu ku xifdin karaa 10 jir hadduu gaaro iskuulna uu bilaabi karaa asoo diyaarsan kalaamullah inuu xambaarsan waqtina loo sameeyna lala xifdin karo lala ilaalin karo cilmiga waa marka laba weeyaan midna markaad dhimatid ayuu ka haray shahaadaad doctora waxyaabo aad soo qaadatay markaad dhimatid gurigaada ayay ku harayaano in la jeexo qof kale wax u tarayaan ma lahan amma alquraan iyo dhikriga ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka baratay wala dhimanaysa oo waxa weeyaan qabrigu kullu gala bi idin Allah tabaaraka wa ta'ala maalinta qiyaamada uu ku shafiici marka insha Allah ta'ala cilmiga uu kala yahay ingiliiska in la barto waa loo baahan yahay carabiga in la barto waa loo baahan yahay luqadka kulli in la barto waa loo baahan yahay hadda anigu ingiliish baahi weyn saas umaanan qabi jirin laakiin markaan arkay dad muslimiin oo ii turjumayo saan rabo iyo waxaan raba inaan u sheego inaan la gudbinin markaan arkay ciila ay qabtay inaan ingiliiska barto هذا إن شاء الله وبرندونا إلهي نوعه سبحانه وتعالى وحكى لما أنا كوش قيس ما أهن إن دعوة تجارسية لكن هذا نقرني إن وحكانا قصة مالها ما نتقيم إلهي كو الدين ما محاوصة برنويس إنجليش كده قصة بقى كده عضي هذا كهر أو إن لقصنا ولو باهي هي مركا نمبا وحوتا جاي إنجليش كمالها أو إنجليش لقاها الله حسير حمر إسكاها مركاسو من أروس بو أركي مركاسو ده ميشان محاكا جرا nin gaalo weydiiyay wuxuu dhahay meesha maxaa ka jira I don't know awal mara uu maqlo ma wiligiis ma arkin I don't know maqlo marka wuxuu maleeyay ninka aroosay inuu I don't know magaciisa uu yahay haddana maalin kadib wuxuu arkay mid la wado midkan yaa dhintay maanta uu dhahay haddana I don't know dhahay haddana wuxuu maleeyay magacii ogtahay Allahu naxariisto I don't know shalay inuu aroosay maanta uu dhinto marka English iyo luqad waxay muhiim ay leeyihiin haba yaraatee ma jiraan laakiin bid'awa ila Allah waa loo baahan yahay Allah idin barakeeyo sheekheena Allah barakeeyo dacwada Allah noo xoojiyo ilaahay waxaan weydiisanaa subhanahu wa ta'ala an ilaahay inuu tawfiiqana waafajiyo an yaj'alna du'aat ila Allah اللهم يا كريم يا رحيم يا ودود يا سميع الدعاء يا من له حق للعباد يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأسقامنا وأمراضنا وأوجاعنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى كما هدينا علمadaas inoo timid khayrka iyo dacwada iyo nicmada inoo keentayna aad iyo aad baan ugu shukrinaynaa waxaan insha Allah ilaahay uga baryaynaa in uu miisaankooda khayrka u saaro dambigood iyo kii waalidiintoodna ku dhaafo ilaahayna subxaanahu wa tacaala aakhira uu naxariisto adduunyadana ku xifdiyo kuna barakeeyo intaa kadib walaalayaal waxaan u malayn wixii wacdi ahaa iyo wixii waana ahaa iyo wixii tala ahaa way dhammaatay culimmadaa dhammeeyeen laakiin maxaan maraynaa xabaal iyo ninkeed loo kala teg ma maqasho maas xabaal iyo ninkeed loo kala teg dacwadii iyo reerna kuru loo kala teg reerna kuru intaan oo muslimiina oo waliba laga yaabay in 3 meelood 4 meelood 5 meelood dadka magaalada ku nool ay yihiin magaaladina dacwadeedii farka qodnayn waxoogaa waxaad moodaa hagarasha inuu jirto marka hagarashada aan dacwada ka bixinno dacwada yar iyo weyn rag iyo dumar aan ku dadaalno fariinta iyo amaanada culimada in maartay inoo dhaafeena aan hirgelino waxa la wixii culimo looga baahnaa innaga culimaha aan qabanno culimada inoo imaatana dardaarankoodii iyo waxa inoo sheegaan aan ka faa'iideysano taasaana adduun iyo aakhiro faa'iido inoo ah
intan ruux ee ku jirta caawa laga yaabo 1,000 ruux inaan noqonno haddii ruuxii hal ruux uu soo islaamiyo ruuxa aad soo islaaminaysana wax yar baad siin afka macaanidiisa haddii uu kugu raaci waayo xataa waxoogaa yar haddaad siiso wuu iska hanuuni biidnillaahi tacaala marka xoolaheenna iyo caqligeenna iyo cilmigeenna iyo xigmaddeenna iyo akhlaaqdeenna aan u adeegsanno dacwada iyo wanaagga magaaladeennana aan toosinno maalmahan waad ogsoontihiin magaaladeenna waxoogaa waxaan maraynaa calaacal badan baad keentaan wiilal jaaga xiiran baa imaadeen iyo dad waxoogaa maarata dhallinyaro aan si fiican u soconin baa la arkay iyo waxbaase si aad dhahdaan haddee intanoo dad wanaagsan baa magaalada ku jirtee ma 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 yaa wax ka qaban weyne meesha waxaa ka muuqata waxoogaa mas-uuliyad darri baa inugu jirta haddii nin walba meesha uu taagan yahay midka ag taagan uu gacanta qaban lahaa anii maba soo gaadheenba ka iga siisheeyana ma soo gaadheen laakiin waxaa ka muuqata midka waxaa arkahaya ee ku xiga inuusan dan ka lahayn kii marka wuu soo dhaafi kii kalena wuu soo dhaafi waxaan idin leeyahay inteennan oo magaalada ku jirta innagaa hadda layna halabsanhayaa laynoo jeedaa in layna beddelo maxaa keenay taas waxaa keenay markaan wax beddeli weynay aad dadkii dacwadii la dhexgeli weynay innagaa hadda laynoo jeedaa carruurteennibaa hadda cabsi ku jirta haweenkeennibaa cabsi ku jira yacnaa iyaga ini mabda'oodii laga beddelo laakiin maxaa la rabay mabda'i fiicnaa innaga aan wadnay inaan dadka ugu beddelno maxaa yeelay ma sun iyo malab yaa isku mid ah innagu malab baan wadnaa ayaguna waabay iyo sun bay wadaan marka suntoodii aan malab ugu beddelno khadhaarhkoodiina macaan aan ugu beddelno marka insha allahu arrimahaas ay culimmadu sheegeen soo inaan isu kaashanna diyaar uma tihin berri haddii ogaada hadda waxaan dhihi meesha ingaala la yidhahdo wixii ka dhax reeingaalaaan qabsan haddaad dahan caawa diyaar baan nahay reeingaala qaylo dambe iyo wiil jaaga xiiranoo dambe laguma arki karo maxaa reeingaala mas-uulka ah kibaajiye iyo xaggan iyagaa mas-uulka ah 58 iyagaa mas-uulka ah shabab iyo xaggaas iyagaa mas-uulka ah haddii wax laga soo sheego qoladan baa buugga lagu qori uun marka allah idin barakeeyo culimmadeennii iyo innagoo dhan allah ina barakeeyo khayrka aan doonayna allah ina gaadhsiiyo dacwada barakadeeda iyo xifdigeeda iyo wanaaggeedana allah ina siiyo insha allahu khayrka aan ku dadaalno aan isu kaalmaysanno aan horseed u ahaanno aan ku barakowno aan isku xifdinno isku ilaalinno wajazaakum allah khayr insha allah waa laynoo aadaami kadibna waan tukanaynaa marka waa mahadsantihin jazakum allah khayr wa sala allah wasalam